Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona nisa oo saddex garab noqotay iyo digniin amni oo taagan xildhibaan sanbalolsho oo kashifay awoodda ay ku lahaan doonto nisa baarlamaanka haatan dhowaan lasoo doortay Fahad Yaasiin oo dagaal abaabulaya muxuu yahay dagaalkaasi xilli hamigiisii siyaasadeed oo fashilmay wararkaas iyo warar kale oo ku aadan xaaladda guud ee doorashada iyo siciidani oo mooshin ku bilowday ayaan daawadayaal warka janaalkeena runta idinkugu soo gudbin doonaa. Haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aansu ku bilaawo qodobka ugu horeeya. xildhibaan sanbalolsho ayaa ka shifay awoodda haatan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ee nisa kusoo biiray. xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sanbalolsho oo ka mid ah xubnaha laga soo doortay golaha shacabka magaalada beledweyne ayaa ku baaqay in xubnaha shahaadadaasi soo doontaan. sanbalolsho ayaa weerar afka ku qaaday saraakiisha iyo xildhibaanada kusoo biiray balse amar ka sugaya saraakiisha ka sareysa xilli uu ku sugnaa xarunta guddiga fiid oo shahaada lagu guddoonsiinayay xildhibaan sanbalolshe. nisa taliyaheeda waa qaatay shahaadada hal taliya ma lahan waa taliyayaal badan tahay ayuu yiri cabdulaahi sanbalolshe. ugu dambeyn waxa uu sheegay in xildhibaan sanbalolshe in hore loo socon doono oo aysan dad gaar ah loo xayiri doonin islamarkaana wixii kala tabashaah ee jira si hoose loo dhammayn karo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayuu sidoo kale eedan u jeediyey sanbalolshe isagoona sheegay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo kooxdiisa inay doonayaan in ay dhibaato ay dalka geliyaan sida uu sheegay xildhibaan sanbalolshe. xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey wada qorshayaal ay ku doonayaan inay ku qaataan shahaadooyinkooda. hase ahaatee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedyada dalka ayaana ku qanacsaneyn shahaado qaadashada xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay hirshabelle, koonfur galbeed iyo galmudug. dhinaca kalena daawadayaal nisa ayaa saddex garab kala noqotay iyadoona digniin amni ay haatan taagan tahay. iyadoo doorashada mareysa heer gabagabaah ayaa waxaa soo baxaya digniino xagga amniga waxaana jira warar sheegaya in aada looga cabsi qabo in weeraro ay ka dhacaan muqdisho iyo magaalooyin kale. dayaca amni ayaa jira waxaana ugu wacan sida xogaha rasmiga ah lagu helayo in saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya ay noqdeen saddex garab. dhibaato weyn ayaana sidaasi ay ku tahay dalka iyo dadka. xubno ka tirsan saraakiisha waayajoogga u ahaa nisa ayaa waxa ay sheegeen inay la yaab ay ku noqotay arrimaha kala duwan ee haatan taagan waxayna ay tilmaameen in xaalad kasta oo jirto loo baahan yahay in laga hortago. sirdoonka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa in haatan uu ku jiro xaalad adag hase ahaatee saraakiil uu ka mid yahay taliyaha dabagalka ahna madaxa muqaabaraadka cabdiraxmaan dheere ayaa waxaa la sheegayaa in uu yahay shakhsi haatan doonaya inuu tallaabooyin adag uu sameeyo oo ku aadan in gebi ahaanba uu ka taklusiyo cid kasta oo siyaasadiisa kasoo horjeeda. maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo saraakiil fara badan ayaa la sheegay in ay isbeddel ay doonayaan. sidoo kale xogta waxay sheegaysaa in qeybta farmaajo garabkiisa uu ka mid yahay saraakiil lagu kala magacaabo yaasiin farey oo isaga si kumeel gaar ah u ah taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. taliya cabaas liibaan daahir asma oo ah madaxa qorsheynta, qadar oo ah taliyaha eeraboorka iyo awees oo ah madaxa howlgelinta dabagalka. saraakiishani dhammaan ka tirsan hay-adda nisa ayaa waxaa la sheegayaa in ay dhibaatooyin ay ka geysan karaan muqdisho. dhinaca kalena daawadayaal Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ku fashilmay qorshayaal dhowr ah. taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka eedeysane Fahad Yaasiin ayaa ku fashilmay dhaqangelinta dhowr ah qodobo si uu u helo shahaadada xildhibaannimo ee u diideen guddiga doorashooyinka heer federaal iyo ra-iisul wasaare Roble. Fahad waxa uu markii hore isku dayay in uu kala jibiyey guddiga fiid waxaana uu soo adeejiyey xogayihii guddiga doorashooyinka cabdiraxmaan cabdicasiis aadan xiirane kaasi
kaasi oo ka hor yimid go-aanka kasoo baxay guddiga ka hor inta aanan shaqada laga raacdaynin. Fahad waxa uu dadaal ku bixiyey in xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux uu joojiyo bixitaanka kaararka aqoonsiga ID kaarada oo labadii maalin ee lasoo dhaafay ay qaadanayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka. Mar kale waxa uu isku dayay in Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux uu kala heshiiyo sidii uu u heli lahaa ID kaarka xildhibaannimo, hase yeeshee xogaya Buux ayaa ku wargeliyey in uu markii hore oo la yimaado shahaadada guddiga doorashooyinka fiid, taasi oo hore loogu diiday. Fahad ma quusan, waxa uu madaxweynaha Koonfur Galbeed amray in xildhibaanada maamulkaasi uu ku celiyo Baydhabo oo aysan imaanin Muqdisho. Hase yeeshee qaar ka mid ah ayaa waxa ay qaateen markhaatiga shahaadada, iyadoona taasi ay noqotay dhibaato kale oo ka dhicisooday. Shalay waxa uu isku dayay in la carqaladeeyo xildhibaanada shahaadada qaadanaya, waxaana lagu waabariistay jidadka muhiimka ah ee caasimadda oo xiran, inkastoo isku daygaasi uu noqday hal bacaad lagu lisay kadib markii hal xildhibaan la hor istaagi waayey. Sidoo kale dhammaan saraakiisha NISA ayaa sanadkan ku biiray baarlamaanka, iyagoona ka hor istaagay inay qaataan shahaadada labadii maalin ee lasoo dhaafay. Hase yeeshee qaar ka mid ah xubnahaasi ayaa ka dhaga adeegay in guddiga fiid ay guddoonsiiyaan shahaadada. Dhammaan boqorshahaasi ayaa hirgelin u noqon waayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, inkastoo kooxda Fahad ay u muuqanayso haatan mid gobolkeeda uu sii dhacayo. Farmaajo waxa uu doonayaa in xafiiska madaxweynaha uu ku sii jiro ilaa bisha Maars ee sanadka dambe, halka Fahad uu u baahan yahay aqoonsi xildhibaannimo si uu u helo xasaanad hoose oo gabagabada waxay u noqon doontaa mid dhibaato badan uu dhex la galo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa khilaafkii ugu xumaa ka dhex taagan, inkastoo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wax kasta uu meel sare uu ka daawanayo. Dhibaatooyinka haatan jira ayaa waxay u muuqanaysaa kuwa aada u adag. Dhanka kalena qorshayaal ka dhan ah madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ka bilowday gudaha magaalada Muqdisho. Wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka tobnaad ee kasoo jeeda deegaanada Puntland ayaa Muqdisho ku yeeshay shir ay ugu magac dareen badbaadada Puntland, kaasi oo xuseen inay uga tashanayaan sidii loo sixi lahaa siyaasadda gudaha Puntland. Sidoo kale waxa ay ku ballameen shirweyne kale oo ay kasoo qayb gali doonaan aqoon-yahano, waxgarad iyo dhalinyarada reer Puntland ee ku sugan caasimadda. Siyaasiyiinta ayaana dhowaan soo waayay kuraastooda baarlamaanka, waxaana ka mid ah xubnaha kuraastooda waayay wasiiru dowlaha maaliyadda Soomaaliya iyo wasiirka qorsheynta dalka. Galmudug ayaa dhowaan xubno siyaasiyiin ah waxay ku bilaabeen dood adag oo ay ku doonayaan in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor meesha looga tuuro. hase ahaatee madaxweynaha maamulka Puntland ayaa haatan jahwareer cusub u bilaabanaya. Puntland iyo Galmudug ayaana ku jira jahwareer siyaasadeed oo adag. Siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada maamuladaasi ayaa haatan waxay qorshahooda ugu weyn uu yahay inay gebi ahaanba ay ka taqlusiyaan Axmed Qoorqoor iyo Siciid Cabdulaahi Dani oo kala hogaamiya Galmudug iyo Puntland. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waa naga inta. haddaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena, like iyo share iyo commentiga noogu dadaala. waad mahadsantihiin. nabadgelyo.